aad baad u mahadsantahay walaalow waa ku dhowahay aadna waxaan uga mahadnaqayaa jaaniskan quruxda badan ee caawa TV-gu i siiyey anigoo jooga wadanka Uganda qaas ahaan caasimadda Kampala. Aad baan kaga mahadnaqayaa iyo TV-ga. Aad baad u mahadsantahay walaalow safarkan wuxuu ahaa safar gaaban oo shaqooyin iyo barafad aniga ay khaas aan u imi waana shaqadan u imi iyo xogtaan u imina alxamdulilah rabbil caalamiin xoogeedu waa ii dhamaatay. aad baad mahadsan tahay. horta wasaaraddan magaceeda waxaa la yidhaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. wasaaraddan dalka way ku cusub tahay saddexdii sane ee hadda xukuumaddan cusub shaqaynayso uu hogaaminayo mudane ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dalka lagu soo kordhiyey markii la ogaaday baahiyihii markaa dalka ka dhacayay maadaama uu dalkeenu ku jiro marxalado isbedbedelaya. marxaladuhu waxay isku bedelaan dhowr nooc. waxa weeye wax dabiiciya iyo wax غayr dabiiciya, wax anagu gacmahena ku keensanno iyo wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeno oo ay ka mid yihiin abaaraha oo kale, fatahaadaha oo kale, waa dabiici waaye wuxuu Ilaahay keeno. waxyaabaha gacmahena ku keensanno waxaa ka mid ah qaraxa iyo dhibaatooyinka noocaas. maadaama la arkay baahida noocaasi inay jirto ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ambartan uga mahadnaqayo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxay curiyeen wasaaraddan maadaama wasaaraddu ay muhiim u tahay dalka oo dhibtan dalku uu marba ay ku soo laba noqonaysa ayaa wasaaraddan la curiyey. wasaaraddan waxay shaqaynaysaa saa wada ogtihiin sanadkii saddexaad ayaa hadda u buuxsumaday. waxaa u qabsoomay waxyaabo aad u fara badan wasaaradda. wasaaraddu sideeda markii la sameeyo waxaa loo baahan yahay siyaasad iyo istiraatiijiyad iyo qorshe in la sameeyo. alxamdulilah rabbil caalamiin qorshooyinkii istiraatiijiyadii aan sameynay waa ku wada guuleysanay. waxaa ka mid ah oo hadda aan dhagax dhignay xaruntii gurmadka degdega ahayd oo lagu qaban doono waxyaabo aad u fara badan. waad dareemi kartaa markii ay dhibi dhacdo waa in la helaa goob la isugu yimaado oo laga bixiyo service emergency degdeg ah. xaruntii 13 bishii October 2019 ayaa waxaa noo dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. haddana insha Allah haddii Ilaahay yiraaho waxaan dardar gelin doonaa dhismaheedii baan dardar gelin doonaa haddii Ilaahay yiraaho. shaqadu aad bay u fiican tahay. waana la socotaan dalka hadda bilihii ugu dambeeyey fatahaadihii ka dhacay beledweyne roolkii ay wasaaraddu ay lahayd ay ka qaadatay qaabkii ay u maareysay. waad dareemi kartaa walaalow dad cadadkooda uu gaarayo 52,000 oo qoys ayaa waxay ku barakaceen fatahaadihii ku dhufatay beledweyne. alxamdulilah waxa aan bartan uga mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shaqadaas noo fududeeyey kadib khibradii iyo aqoontaan u lahayn inaan dadkii maareyno oo aan ka saarno dhibtii marka ay ku jireen annagoo markasta u digayna marxaladda ay ku sugan yihiin dadku annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga ah ayaa waxaan badbaadinay intaas kun oo qoys oo Soomaaliya. marka waad dareemi kartaa roolka iyo waxqabadka ay leedahay wasaaraddu. hadda waniga kuu sheegayey fatahaaduhu horta waad dareemi kartaa dalkeenu wuxuu leeyahay laba webi. waad dareemi kartaa dalku marxaladda uu soo maray iyo maanta meesha uu maray waad dareemi kartaa. wax kastana shaqay u baahan yihiin. hadda webigan fatahaadda sameynaya markasta wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo shaqo laga qabto. 30 sano la soo dhaafay wax shaqo oo laga qabtay ma jiraan. sababtoo waad dareemaysaa fatahaadduna waxay timaadaa wuxuu leeyahay biyuhu mayl ama mayl ay ku socdaan biyaha qiyaas ay ku socdaan baa jira. haddii webigii aan laga shaqayn oo aan la carafaagin oo dhirta ka baxday waxaa laga jira fatahaad buu sameynaa. wasaaraddu way u qorsheysan tahay waana qorsheena insha Allah haddii Ilaahay yiraaho inaan webiga la faago laga hortago fatahaada. badanaa fatahaadahana waxaa keena waxa weeye waxyaabo badan oo isbiirsaday oo dadku ka mid yihiin. waxaad dareemi kartaa webi sidiisaba webigu wuxuu lahaan jiray waqtigii dowladdeennii hore gacaamo uu ku fataho wuxuu lahaan jiray meel uu ku neefsado wixii oo dhan waa la baabiyey shacabku waa dhisteen. waxaad arkaysaa beledweyne haddii aad tagto maraan beledweyne anigu tegey waxaad arkaysaa qarka webiga oo guryo laga dhisay. shacabka intaa waa lala hadlayaa war webigu waa fatahaya war dhibta iska daay. laakiin hadda insha Allah haddii Ilaahay yara qorshaan nooga degsan waxaan isku dayeynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraaho annagoo kaashanayna waxqabadkeega iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay fatahaaddan badhicin insha Allah haddii Ilaahay yiraaho. waa maxay jigsiga iyo wasaaraddiina ka leedahay dalka Soomaaliya? sababtoo ah wasaaraddan waxa loo sameeyey waxay ahayd baahi u baahan yahay dalku oo ah khatarahan
dabiiciga iyo khayr dabiiciga hiigsigiina wuxuu ku jiraa qaabkii aan u maareyn lahayn musiibooyinkan soo noqnoqda intii aan la tacaali karana waa la tacaalnaa waana maareynay intii awoodayda aad baad mahadsan tahay waxaan la wadaagi lahaa Soomaali meel kasta ay joogto horta inay midowdo maanta waxaan wax ku nahay waa magaca Soomaali waxaan wax ku nahay waa calankaas buluuga waana dareemi karnaa dalkeenu maanta marxaladda uu marayo iyo qaabka ay wax u socdaan waxaan bartan uga mahadnaqayaa jaaniskaygan uga faa'iideysanaya mar haddaan su'aalaha ka baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dadaal aad u weyn geliyay 3 sano ay dalka maamulayeen annagu laftigay ku shaqeynana amarkooda iyo awaamirta ayna faraan wax dareemaysaa maanta dalkeenu meesha uu marayo wax dareemaysaa maanta deyntii inay qarka u saaranta in la cafiyo oo dalka lagaba dhaafo wax dareemaysaa maanta dalkeenu meesha uu marayo in ciidamadii dalka oo dhan la tiro koobay oo maanta ay ku qaadanayaan bay mitir ay ku qaadanayaan mushaharkooda ay ku qaadanayaan waxaad kaloo dareemi kartaa dalkii maanta dastuurkii muddada 12 sano inugu noqday wadada dheer in la soo afdiri doono bishii 6 insha Allah hadii Ilaahay yiraaho oo dalka loo ansixin doono waxaan naga go'an anaga ka xukuumad ahaan anoo ku hadlay magaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka wuxuu ku socdaa wadadii tubti toosnada wadada ku socdaa waxaan bartan baaq uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ka maqlaya waxaan leeyahay war dalkii waa inoo hagaagaya gacmo wada jir wax ku gooyaan aan gacmaha isqabsanno dalkeena aan dhisano dal kasta waxa dhisa dadkiisa marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed dalkeena aan dhisano walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay TV-ga iyo shacabka Soomaaliyeed aad baan wada salaamaya jaaniska ay siisan quruxda badan aad baad u mahadsantahay thank you